كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. ودرين فرحات كوجهن جيل كمان تصبحي إنه هليان فرصة وحبرشوا سيأيوه مريان نلشوده وانفليا مؤسسة بلاسما إنه تهي مؤسسة وساكسي وخدمين تبلشده مامورك جامعتنا إدمان إسكو حل سارين سيدي أهر مري لهايين جيل كبير دلك وحقوق الدورة وحنو يريا دافورك برنامجك في برنامجك سجود أنا وده فرنو أستاذ أحمد عبد حسين أشرف أحمد عبد حسن إيراد عفوا أيانو يريا في برنامجك نوجود فرن أنا كوهد لايا حفيزك سكولرشيبك جامعة بلاسما وحن مانتا إذن كسر دوينينا حفلة قروح ذو بدن munaasabada lagu abaalmarinayo ardada Soomaaliyeed laga soo bilaabo min Ras Caseer ilaa iyo Ras Kamboni oo lagu abaalmarinayo 100 kursi oo deeq waxbarasho ah oo sanadkii labaad jaamacadda Balaasmo ay wado waxaan idin leeyahay dhammaantiin sidaad u dhantihiinba soo dhawaada munaasabadan qaaliga ah oo aad warbixino kala duwan ka heli doontaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada xafladiina way noo furan tahay dadku waxay ku tartamayaan taqasusaad kala duwan ujeedadiisu waa hal waa ha guuleysto arday Soomaaliyeed si mustaqbalka dalka u iftiimo dadkii hore waxyaabaha ay ku sheekaysan jireen waxa kamid ahay annaga dalka canshuurtiisa ku soo baranay waa inaan dalka u adeegnaa marka maanta waxaad wax ku baranaydaa canshuur ay ka bixi doonto mu'assasada Balaasma si biri dadka deen ay kugu yeeshaan oo aad u tiraahdo Balaasma Foundation waxay iga bixiday deen ay ahayd waa inaan dadka u gudaan mar haddii tartan miiska yimaadana dadku waxay milicsanayaan tartankan cadaalad ma noqon doona cadaaladda ilaaha haya balse dadaalka dadka waxa uu gaari karaa heer dadku ay ku qiraan inaad waxaad sameeyday ay cadaalad yihiin hadallada yaan idin kala hormarin hadal baa ka horeeya ka miisaan badan ka macno badan ka tilmaan badan ka tusaale badan waxaan u yeerayaa tusaaleyaha guud waa gudoomiyaha jaamacadda Balaasma gudoomiye Xasan Maxamed Xasan Kaafi ayaan u yeerayaa si kelmadda maamulka jaamacadda uu halkan uga jeediyo Professor Xasan Maxamed Xasan Kaafi soo dhaweyntii tartankan ama 100 kursi ee jaamacadda bixisay waxaa soo apply gareeyay 1500 oo arday oo ku sameeyay codsashada habka online-ka ama habka buuxinta foomka iyagoo booqanaya xafiiska deeqda waxbarasho markii la maray habkii xulista waxaa soo baxay 290 arday oo ka mid ah يعني 100 كرسي dadka u tartamaya sanadkii hore 310,000 oo dollar ayaa loo celiyay bulshada arday guuleystayaal oo qaarkood laga yaabo hadda inay goobjoog yihiin ayaa ku soo guuleystay oo waxbarashadii bilaabay hadii ay ahayd 4 sano ama ay ahayd 6 sano sanadkan 100 kursi oo la mid ah numberkoodu markuu isbedelo waa 400,000 oo dollar ayay يعني هليان أرضية ما أنت أترتميس أو يعني وحبرشوا وقرشكي أرضية كبحلها أو ما أصدق كبحسن وحن رجينا إن نقول استياشة إني نقدان ضد فهم يقيمها ما الجرين تلقسمي جامعة بلاسما وجامعات كم إذا جامعاتها دلك الصومالية كو وجود أدوي وجو ما تقانا مجا سمعة ونكسن dhinaca kalena caalamiyan waa jaamacad la ixtiraamo waxay xubin ka noqotay ururka midowga jaamacadaha Afrika 2013 2017 waxay ku biirtay hoggaanka ururka hoggaaminaya 7 bisha July waxaan loo doortay inaan noqono wakiilka matalaya gees bariga Afrika iminkana waxaan rabaa inaan u jaleeco tusaalayaashii xayiga ahaa ama noolaa
ee aan ugu talagalnay munaasabadan quruxda badan inaan ku noolayno si dad badan oo maanta joogahana ay berri ugu noolay doonaan waxaan u yeerayaa waalid ka mid a waalidiintii guulaystayaashii sanadkii hore 3 ka mid a ardaydiisa ama gabdhihiisa oo sanadka dugsiga sare ka baxay waxaa kaloo u kulmay isla sanadka asagoo jaamacadii dhameynaya waa isla jaamacadii Balaasma waxaa farxaddu hadday kaa badato inay oysaa ku suganaysaa marka waxaan leeyahay horta jaamacadda Balaasma guul iyo horumar waa awalan waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta waxaan kamid ahay ardada sugayso qalin jabintii xafladda ee jaamacadda Balaasma qaybta kulliyadda beeraha habeenada kamid ah ayaan waxaan raashay meel ciyaalkaydii oo ka baxay secondary-ga aan waxbarasho uga helo waan soo dhaqaaqay waxaan imid jaamacadda Balaasma anigoo wareysanaya bal xaaladda ay wax ku bixinayaan iyo qarashka ugu bixi kara intuu leeyahay waxaa la ii sheegay inay jirto deeq waxbarasho haddii nasiibku saamaxo alxamdulillah foomkan u buuxiyey markaas waxyaalihii markaas aan la jeclaa inay bartaan ayaguna waa igu taakiideen carruurteydii khayr allah siiyo habeenkii xigay salaatu istiqaar aan dukaday in ilaahay tawfiiqda igu waafajiyo nasiib wanaag ilaahay salaatu istiqaaradaas waa iga aqbalay waana ii sahlay wayna ku guuleysteen 3 carruurteyda kamid ah hadda waxay kamid yihiin ardada jaamacadda Balaasma kulliyadeeda caafimaadka qaybaheeda kala duwan waxaan u yeerayaa Yaxye Maxamed Cali Yaxye wuxuu kamid ahaa ardaydii sanadkii hore ku guuleysatay deeqda waxbarasho balse lama filaan ay ku ahayd lama filaanka maxay ugu ahayd asaga ka jawaabi doona waxaan leeyahay maanta waxay tahay maalin aada u weyn waaye maalin aada u qiimo badan waaye markaas waxay xasuusinaysaa maanta oo kale maalin aniga sidiina kale meeshaan fadhiyey sidaad maanta wadnaha farta ugu wada haysaana aan sidoo kale inta maalinkaas anna wadnaha farta ku hayay conditionkan hadeer oo markaan soo hadeer taagantihiin markaan soo gaarnay 50 qof aan ku ahayn 50% for waxaa laga rabaa 4 qof kaliya imagine marka 50 qof iyo 4 kursi wax yani qariiba waay 50 qof aan kusoo apply garaynay inaan helno medicine qof walba inuu helo oo dhakhtar noqdo waxa loo baahan yahayna waa 4 persons kaliya waa maqtiyaankiisii yaa la galay alxamdulillah never expect wallahi ma feeling I was the number 1 ninka ka helay baa ahaa numberka ugu koowaad oo ku guulay borseeska hadda la maraayo waxaa tartami doona horta 190 arday 290 arday waxaa la rabaa 100 arday inay soo baxaan college-ka business and economics waxaa ku tartami doono 39 arday waxaana laga rabaa 20 arday college-ka agriculture and veterinary waxaa ku tartami doono 16 arday waxaana 15 arday ku tartami doonto waxaana laga rabaa 16 arday college-ka health science waa meesha ugu adag ee tartanka kaga dhici doono waxaa tartami doona 165 arday waa meesha ugu adag ee tartanka kaga dhici doono waxaana laga rabaa 24 arday college engineering and technology waxaa tartami doona 39 arday waxaana laga rabaa 20 arday college humanity and social science waxaa tartami doona 32 arday waxaana laga rabaa 20 arday waa dareemi kartaan culayska meesha uu ka taagan yahay medicine laboratory ha u badnaadaan culayska meeshaas uu ka taagan yahay waa health science saabiriin aanta waxay gelinaysaa qoraaladii waxay la soo baxday halkeeda warqad saabiriin waxay ka imaatay iskuulka loo yaqaano alyaasir maxaan kala u yeeraynaa cabdiraxmaan khaliif cali iskuulka golden sida aragtaan ma dadku iskuul maaha isku xaafad maaha isma yaqaanaan laakiin waxay tartamayaan medical lab waxaan kala u yeeraynaa faaduma cabdimajiid iskuulka israel waxaan kala u yeeraynaa cabdiraxmaan sayid cali maxamed أولا السلام عليكم أنا محمد عبد الله محمد كان سعودو
dugsiga sare Darul Tarbiya Primary and Secondary School. Waxaan helay lambarka 2. SYL waxaan helay number 3. Ablaan Primary and Secondary School lambarka ah helay number 1. sida hore u codsanay inay guusha ay ku dhawaato 2 labo ay ku dhawaatay tartanka waxa ku dhawaaday 2 gabdhood iyo 2 wiil 45 qof oo tartamayay qof wuu maqnaa halkaas waxaa noogu soo dhamaaday tartamayaasha medical lab annaga dhammaanteen arkayna soo gudbay 100 arday oo ka mid ah ardaydaas ku soo baxay qoratuurka yani aad ay u mahadsan yihiin ardayda kale ee tartantayna hore waxaan ugu sheegnay mar walba qofkii ka qayb gala tartankan wuu guuleystay maxaa yeelay wuxuu ku guuleystay inuu noqdo qof helay deeqdii waxbarashada dhamaystirka trade ama wuxuu ku guuleystay inuu helo yani deeq waxbarasho oo qabyo ah macnaha qayb ka mid ah in loo turo oo loo sameeyo discount